السلام عليكم. kusoo dhawaada barnaamijka sahanka saxan. magacaygu waa Canab, waxaan ka mid ahay qabanqaabiyayaasha barnaamijkan. waxaan idinla wadaagi doonaa sheekooyin xiiso leh. maanta waxaan u dirayaa mahadcelin gaar ah walaashan Umul Khayr iyo walaalkeen Maxamed oo qaybtan u maalgeliyay ilmahooda Mina iyo Zayn. sheekada magaceeda waxaa la yiraahdaa Mina iyo awoodda dhabta ah, oo si qurux badan bay inoogu iftiiminaysaa muhiimadda barashada khibradaha nolosha. beri baa waxaa jiray gabar yar oo la oran jiray Mina oo 5 sano jir ah iyo walaalkeed oo 6 sano jir ah oo la dhihi jiray Zayn. Mina iyo Zayn waxay ku noolaan jireen magaalada Los Angeles ee gobolka California dalka Mareykanka. maalin maalmaha ka mid ah ayaa Mina iyo Zayn waxay ku ciyaarayeen goobta ciyaarta ee xaafadooda u dhow. Zayn wuxuu ahaa wiil geesi ah oo jecel inuu wax barto. Minana waxay ahayd gabar aad u firfircoon oo had iyo jeer farxad ku ciyaarta. intii ay ciyaaraysay Mina, Zayn oo ordaya ayaa si kadisa ugu dhacay, taasoo sababtay inay dhulka ku dhacdo isla markaasna ruuga ay dhulka ku dhufato. Mina waxay dareentay cadho degdeg ah, waxayna damacday inay ku qayliso Zayn, laakiin isla markiiba waxay xasuusatay xadiiskii ay hooyadeed bartay. xadiiskaas oo Abu Hurayra Ilaahay ka raali noqday ka warinayo, nabigeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. nabigeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu ina baray inuu xooga dhabta uusan ahayn in dadka kale laga adkaado, balse naftaada la xakameeyo marka aad xanaaqsan tahay. ayadoo ka fikiraysa xadiiskaas, Mina waxay go'aansatay inay istajiso. waxay eegtay Zayn oo wejigiisa walwal ka muuqdo, kadibna waxay ku tiri, walaala waa caadi Zayn, laakiin hadda ka bacdi arrimaha noocan oo kale ah ka taxadar. Zayn wuu yaabay waxa ay Mina samaysay, ayuu la yaabay. si degdeg ah ayuu u raali geliyay Mina, hab ayuuna siiyay. Mina way faraxday, taasoo keentay inay ka gudbaan dhacdadaas. markay ciyaartii u dhammaatay, Mina iyo Zayn waxay aadeen guriga. hooyadood waxay u diyaarisay buskud iyo caano qabow, waxayna ku tiri, kusoo dhawaada guriga, waxaan idiin sameeyey buskudkii aad jeclaydeen. Mina iyo Zayn waxay ku farxeen buskudkii ay hooyadood u samaysay, waxayna qaateen buskudkii iyo caanihii iyaga oo faraxsan. fiidkii markay seexan rabtay, Mina waxay ka fikiraysay xadiiskii iyo dardaarankii nabigeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, inuusan xooga dhabta uusan ahayn in dadka kale laga adkaado, balse in naftaada la xakameeyo marka aad xanaaqsan tahay. sidaas darteed, sheekada waxaynu ka baranaynaa xooga dhabta inuu ku jiro xakameynta cadhada iyo in si naxariis leh loola dhaqmo dadka kale. mar kale mahadcelin gaara waxaan u dirayaa walaashan Umul Khayr iyo walaalkeen Maxamed oo qaybtan u maalgeliyay ilmahooda Mina iyo Zayn. si aad ula socotid safarkeena, booqo boggeena faithfuladventures.com. hana ilaawin inaad naga faalo garaysid qaybta Instagram, TikTok iyo YouTube si aad u hesho sheekooyin xiiso leh oo kuwan oo kale ah. nagala soco bartan haddaad rabto inaad u hibayso ilmahaaga sheeko. inta aan mar kale ka kulmi doonana insha Allah, waad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Goodbye.